a lot of students, they ask us, give me advice. How can I learn English? Give me advice. Yeah, so, maanta waxaan idin sheegayaa tala ay idin sheegi doonaa anaguna waxaan idin sheegi doonaa waxyaabaha i caawiya aniga Allah haddaan Ingiriis ka tagi lahaa haddaan tagi lahaa Canada haddaan tagi lahaa Mareykanka si fiican ma lagu hadlaa saa ugu hadashadiyo sida coach ayaan ugu hadli lahaa laakiin aanu ma aaminsan runta haddaan idin sheego waxa aaminsanahay waa samaysan kartaa environmentka xaggan adigoo jooga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra College. Kusoo dhawaada Iqra College. This is Coach Maryam and Coach Xaayo. Coach Xaayo is here. So arday fara badan waxayna weydiisaa a lot of students they ask us, give me advice. How can I learn English? Give me advice all the time. Su'aasha ugu fara badan qof kastana weydiiyo anigii weydiiyo. I don't know if they ask me. Yeah, yes. How do I practice speaking? How do I get better at speaking and learning English? Yes. And Coach Maryam, you learned English in Africa. Hargeisa, yes. Right? Yes. I never left Africa. Never left Africa? And see how she's speaking. Yeah. So, what was your strategy? Yeah, so, maanta waxaan idin sheegayaa tala ay idin sheegi doonaa anaguna waxaan idin sheegi doonaa waxyaabaha i caawiya aniga marka arday fara badan waxayna weydiiyaan waxay dhahaan Allah haddaan Ingiriis ka tagi lahaa haddaan tagi lahaa Canada haddaan tagi lahaa Mareykanka si fiican ma lagu hadlaa saa ugu hadashadiyo sida coach ayaan ugu hadli lahaa laakiin aanu ma aaminsan runta haddaan idin sheego waxa aaminsanahay waa samaysan kartaa environmentka xaggan adigoo jooga ayaa baran kartaa luqadda Englishka iyo luqadaha kale luqad kasta maaha khasab inaad meesheeda tagtid laakiin halkan adoo jooga baa baran kartaa marka maanta coach Xaayo wuxuu idin sheegayaa maxaa ku caawin kara adigoon tagin Canada iyo Mareykanka iyo UK meelna tagin yes so the first thing you can do is talk to a native speaker like me. That will help you. And then I've heard many Somali speakers learn English quickly in America because their environment was an English-speaking environment. Here, you have to make your own environment, find a native. If you cannot find a native, talk to somebody who speaks English but does not speak Somali. So you force yourself to communicate and you need English. If you can't find anyone like this, find someone to talk to who is more advanced in English than you. marka waxa samay kartaa markaad isleedahay luqadda waxa u baahan tahay hadalkii baad gaadhay xilligii la hadlayay baad gaadhay waxaad raadin kartaa qof u dhashay luqadda haddaad heli weydo qof luqadda u dhashay waxa samay kartaa waxaad la hadli kartaa qof aan Soomaali kugula hadlayn waxa jira dad English ka yaqaan laakiin af Soomaali bay kugula soo degdegayaan marka waxa jira iga jooji Soomaaliga English baan baranayaa English ka igula hadal ama waxa samay kartaa waxa raadin kartaa qof adiga ka yara sareeya that's the best way for me waxa igu wanaagsan inaan helo qof marka luqad baranayo inaan helo qof iga yara sareeya waa wuxuu garanayaa waxyaabihii dhibaatooyinka soo maray oo dhan qofkaas la sheekaysan kartaa la hadli kartaa isaga ku saxsaxaya isaga ku sheegay waxyaabaha caawiyay iyo saasa samayn kartaa. And I know everybody can find someone more advanced than them. Even in America, I can find someone who speaks English better than me. Oh, so. Yes. Yeah, marka qof kasta wuu heli karaa qof luqadda garanaya ka yara sareeya ama jaamacad ha dhigto ama bareefta soo dhigto ama luqadda yara yaqaan waa heli kartaa. marka hadday sareed waxa gaadhay xilligii speakingka waxa raadi qof aad kula practice garan kartid maalin kasta every day. Yes. That's the good strategy? Yes. 1, 2, 3. If you can find a native, find a native. If you can find someone who does not speak Somali but does speak English. And then if you can't find any of these two, find someone more advanced. Yes. Okay, so that's the end of the video. Bye-bye, Santin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.